Bismillahirrahmanirrahim. Shirkan waxaa ka bilaabanaa working with slides. Slides sida loogu shaqeeyo ama loo isticmaalo. PowerPoint presentation are made up of waxay ka samaysan yahay series of slides isxiga. Each slide kastana can contain waxaa ku jiri kara text, graphics iyo animation. Marka qoraal iyo sawiro iyo animation isa ku jiri kara. Marka animation wax la dhaqaaqay leedahay ama video isa ku soo jiri kara. And other information that you wanted to present to your audience. Iyo information kale aad rabtay inaad soo jeedisid bulshada ama dadkii markaas ku dhageysanay. Select slides markii waxaa samaysaa selecting slides markii la dooranayo slideska in order to perform any action. Si loo sameeyo action walba on a slide, you must first select marka hore waa inaad dooratid. You can select waxaad dooran kartaa more than one slide at a time. Hal slide wax ka badan aad dooran kartaa hal mar. Waxaa leenahay marka adding ama deleting slide lagu soo daraa ama loo tuura slide. To add a new slide direct inaad kusoo dartay, click waxaa leenahay home tab, click kadib waxaa leenahay on the new slide tool and use waxaa isticmaashaa the slide layout thumbnails kusoo baxay. To select saa u dooratay the layout for your new slide kaaga cusub layoutkiisa u dooratay. To change a layout direct inaad bedeshid, select waxaad doorataa slide you want to change direct inaad bedeshid, click waxaa leenahay layout, select waxaad doorataa the layout that will be replacing ee lagu bedeli lahaa ama lagu bedeli doono the current layout ka hadda marka isticmaalaysid. waxaa leenahay sawirkan wuxuu noo muujinayaa new slide cusub marka kusoo daraysid iyo layout cusub marka kusoo daraysid. Marka new slide marka kusoo daraysid qaybtana soo furaysaa kadibna waa kuwaana qaybaha dhan mid ka rabta dooranay. Layout-kana waxaa sameynaya slide kaaga asoo kuugu jiro kaliya waxaa sameynaysaa layout-ka qaabka u muuqanaa style-kiisina wax ka bedeli karta. waxaa leenahay marka to add slide direct inaad kusoo dartid waxaa leenahay thumbnails pin tagaysaa, select waxaad doorataa a slide after which you want to add a new slide. Marka slide-ka aad rabtid inaad waxaad dooranaysaa slide-ka aad rabtid inaad kusoo dartid new slide-ka cusub. kadib waxaa leenahay home tab, kadib waxaa ka doorataa ribbon on the slide group, click waxaa leenahay the arrow on the new slide button and then select waxaad doorataa desired layout-ka u baahan tahay from the menu ka dooro. Working with a text sida loo isticmaalaa ama loogu shaqeeyaa qoraalka. waxaa leenahay text is the foundation on which you build a presentation. marka aasaaska presentation kaaga waxa ku dhisaysa waxaa leenahay text Allah. The first slide in a presentation typically contains a title and subtitle. marka waxaa leenahay slide-ka presentation kaaga ugu horeeya sida caadiga waxa uu leeyahay ciwaan iyo ciwaan hoosaad oo leeyahay. Other slides often start with a title. Slideska kalena waxay ku bilowdaan inta badan title ama ciwaan. And then list a major points in a bullet list. kadib waxaa leenahay bullet ahaan qaybaha sida ay isku xigaan ama u kala waaweyn yihiin u soo bandhig. Intro text sida la soo geliya qoraal. Most slide layout include waxaa ku jira placeholder for intro text ee lagu soo geliyo qoraal. Text placeholder display wuxuu soo bandhigaa prompt text. marka prompt text waxaa waaye mid oo markaas qoraalka meesha ku yaala laakiin haddaa ku dhufato ma aha qoraalkii markaas aad ku dhufato yacni meel ebra kusoo bixid. marka prompt waxaa waaye meesha kusoo daawacan yahay laakiin ma aha sida realka marka such marka qoraalka meesha lagu soo daawacayo waxaa waaye such as click to add a title or click to add a text. qoraal noocaasa meesha kugu soo daawacmaayo waa arki doonaa which you can replace kaas ku bedelaysid with your own text. qoraalka u baahan tahay ku bedelaysaa marka qoraalkaas oo promptiga ama meesha ku daawacan. waa kana sawirkan anaga ka arkana waa kana mujida click to add a title. marka click hadhow hadaa si marka PowerPoint-ka aad tago yacni wuxuu ku tilmaamaya macnaha meeshaan ku dhufo si aad ciwaan ugu soo dartid kule intana wuxuu ku dhahayaa inta ku dhufo si qoraal aad ugu soo dartid. marka hadaa ku dhufatid meesha way banaanaanaysaa wixii aad rabtaa ku qoray, intaa ku dhufan way banaanaanaysaa wixii aad rabtaa ku qoray. macnaha wuu kusii tilmaamaya. marka prompt text-ga lagu sheegaa waa kana. alena marka intro text hadaa rabtid inaad soo geliso slide pane-ka tagaysaa kadib click waxaa leenahay slide pane. marka qaybtana la soo ma word-ka waa joogto maxaa dhihi jirnay meesha document-iga gudihiisa document window
sooma excelkana maxaa dhihi jirnay isku day. Okay, waxaa leenahay marka click the placeholder to which you want to add text. marka midka aad rabtid inaad kusoo dartid qoraalkaada kale type waxaa qortaada desired textiga u baahan tahay. waxaa leenahay marka delete slide by right click. marka tourist slide right click add as on selected slide ka aad rabtid inaad on the left column-ka micnaha bidixda selecting delete slide or from the menu. kadib waxaa leenahay press the delete key on the keyboard to select one slide. hal slide si loo doorta ka bilaabi doona cashirkeena xiga. practicada waxaa ka bilaabeynaa cashirkeena waa kana practicada tusaale hadda presentationkana iisoo kacsan. marka waxaa leenahay thumbnail pane waa kana slide pane waa kana. marka waxaa rabnaa hadda working with a text inaan isticmaalno. marka qoraalka saarifta ugu soo dari kartaa, qoraalka rabti ku qoran kartaa, hore u soo aragnay qoraalka rabti waxaa rabti inaad kusoo dari. marka sidee loogu soo daraa slide haddaa rabti inaad kusoo dartid waxaa leenahay qaybtan home tab waa imaaneysaa. haddii insert tab ama design tab aad ku jirtid ma arki doontid, qaybtaas way kaa maqan tahay. marka home tab ku dhufo kadib waxaa leenahay slide imaam. marka meeshaan waxaa ku qoran slides group. kadib waxaa leenahay new slide marabtid waxaa qaybtan soo fur. kadib slide-ka aad kusoo daraysa noocoo noqonaa micnaha intaa options aad leedahay micnaha option-ka rabtid. haddii slide aad rabtid inaad laba wax isbarbar dhigto maxaa isticmaali kartaa midkaan isticmaali kartaa. wuxuu ku sameynaa ciwaanka weynka kadibna labada ciwaan sabka ah kadibna yani xogti markaas isku barbar dhigaysa inaad ku qori karta waa sameyn kartaa. haddana waa bedeli kartaa. waxaa leenahay intimaa waxaa doorataa slide kale tusaale kan oo kale wuxuu sameynaa mid kaloo igu soo daray kii horena wuu ii jiraa. laakiin ka waran marka mid eber oo waxna aad ahayn rabaa inaad soo gashto ayadana waxaa leenahay soo fur. kadib waxaa leenahay meeshaan balaanki ku qoran tahay ku dhufo kadib wuxuu sameynaa slide faaruq waay. marka qoraal la rabtaa inaad ku qorto qoraalka waxaa sameynaya intimaa ciwaanada mid kamida soo koobiyeyso qoraalkan oo kale intoo kale iskaga dhuf meeshaan ciwaankan oo kale koobiyeyso intoo kale kligsay. waxaa leenahay right click kadibna copy ama waxaa dhigi kartaa intaa kalaa test iskaga qorane. kadib qoraalkaas markaa waa koobiyeysanaysaa control c meesha ewerka aheed aad geysanay. hadhow marka qoraalkaas waxaa sameyn kartaa inaad inta geysatid fartaada waxaa qurquruxsatid waa markii uu ever yahay saasa sameyn kartaa. laakiin hadduu ku diyaarsan yahay placeholder ee kugu diyaarsan yahay kanoo kala soo furtay placeholder oo leeyahay. placeholder maxaa dhahaynaa meeshaan boxkan oo ku diyaarsan oo ku dhahaya click to add title waxaa leenahay placeholder lahaa. laakiin ka waran marka promptiga haddaa aa sheegaya muxuu yahay promptiga waxaa waaye click to add a title. haddaa click siiyo qoraalkii aaway wuu baxay yani wuu ku daabacan yahay meesha kaliya ma aha qoraalka markaas inaad qaadan karta ama tirtiri karto ma aha. marka promptiga waxaa dhigi karnaa qaabkaas dhigi karnaa. waxaan leenahay nooc aragti dooro qaabkaas oo kale sameyn kartaa. midkaan oo kale wuxuu leeyahay asna prompt kaloo leeyahay. hadda click to add a title hore usoo aragnay presentation markaa sameynin. click to add a subtitle-na waa soo arag. marka qoraalka u baahan taha labada meel gashanaysaa. waxaa kaloo sameyn kartaa waxa la yiraahdo delete ama slide cusub inaad kusoo dartid. marka new slide kusoo daray waxaa sameyn karaa inaad tuuro. marka intaana tuurin layoutiska haddaa fiiriyo ka waran tusaale hadda kan waxaa igu jiro laba presentation yani waxaa igu jiro laba placeholder iyo ciwaana igu jiro. marka waxaa rabaa stylekan kama helin style kala rabaa oo labadan comparison maray. waxaa leenahay layout imaw kadib waxaa leenahay bedelo noocaan oo kale ka dhigo wajida wuu kuu bedelay. haddana marawi nooc kala rabaa waxaa rabaa tusaale waxaa rabaa isla meesha anoo joogo laakiin haddaa kan ka doorto oo mid kale soo gashto kanoo kale soo gashto wuxuu sameynaa slide cusub ka dhigaa. marka ani slide cusub haddaan rabin oo midka ah hadda taaganahay stylekiisa la bedelo waxaa leenahay soo gal kadib waxaa ka dhigataa noocaan oo kale isla midka taaganta. marka qaabkaas oo bedeli kartaa. waxaa leenahay slide see loo tuuraa. hadda waxaa iigu jiro ilaa 6 slide numberska inta ka arkaysaa 6 slide. marka mid kamid inaad tuuraa rabaa tusaale waxaa leenahay kanoo kale fastiga ama kan labaad aa rabaa inaad tuuro right kaligaa leedahay kadibna meesha waxaa ku qoran delete slide soo ma jeed wuu kaa tuuro meeqa hadda noo soo hartay 5 xabo. qaabkaasa marka
u tuuri kartaa slide markii aad rabtid inaad tuurto. qoraalka sida loogu soo daro hore uga hadalnay, oo waxaad leedahay qoraalka meesha aad rabtid ciwaanka kaligsii, kadibna textiga aad rabtid ku qor. mujida intii ma hadane textiga aad rabtid inta ku qor. mujida textiga aad rabtid ku qoraysaa. qaabkaas u samayn kartaa. inta sidoo kale waxyaabahaas dhan qaabkaas qoraal markaa u baahan tahay aad soo gelin kartaa. cashirkeena intaas ku dhigay. waa mahadsantiin.